Soo dhawaada saaxiibayaal, sheekadeenna maanta waxay daaran tahay sheekada laga alifay taxanaha Deliver Me oo barta Netflix lagu soo baahiyey bishii Maarso sanadkan 2024. Taxanaha oo ka turjumaya dhacdooyinka Soomaalida qurbaha ku qabsada ciyaalka ay halkaa ku dhalaan ama ay geeyaan ayagoo aad u daayar, lagana faa'iideysto intay guda jiraan da'da underage. Sheekada taxanahan oo doorarka ugu badan focuska lagu saaray laba wiil oo 14 jir ah, midna Soomaali yahay kan kalena yahay Swedish, laguna kala magacaabo Bilal iyo Douglas. Stage name-koodana yahay Billy iyo Dougie. Labadooda waa saaxiibo isla dhigta iskuulka ilaa iyo yaraantoodii. Billy waxa uu la nool yahay hooyadii oo single mother ah lagu magacaabo Leila, waxaana la dhashay laba gabdhood iyo hal wiil oo lagu magacaabo Tusain. Tusain iyo Billy waa roommate. Tusain mar walba waxa uu la socdaa xaaladaha Billy maadaama ay yihiin roommate. Maalin maalmaha ka mid ah, Dougie iyo Billy oo kasoo baxay iskuulka, waxaa saddexeeya oo markaa la socda yar ay iskuul yihiin. Yarka oo markaa u shaqaynayay kuwa streetka ka ganacsada, madaxoodana lagu magacaabo Tony. Saddexdooda labada socda waxaa wadada u galaya raggii Tony la shaqaynayay, waxa ayna saddexdooda wadayaan meel bannaan oo gooni ah. Waxaa halkaa lagu jirdilayaa yarkii saddexaad maadaama uu ka xaday biskoolad uu markaa lahaa Tony oo ka carooday tuugnimada wiilka uu kula dhaqmay ayaa waxa uu meesha ku dilayaa wiilkii yaraa. Taasi waxa ay abuureysaa fursad kale oo ah in Bilal iyo Dougie ay qabtaan shaqadii uu hayay wiilka bartaa lagu dilay, waana meeshaan halka ay kasoo galayaan shaqada streetka. Bilal iyo Dougie waxa ay kala labeeyaanba shaqadan, ugu dambeyn waxay aqbalayaan dalabkii Tony, waxa ayna u sheegayaan in ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan. Waxa ayna ku heshiinayaan sheerka shaqadooda inuusan iska dabamarin gelin. Waxay sheekada Billy iyo Dougie ba halkaa kusii socoto, damaashaadkuna uu noqdo baashaal maadaama kaashka uu ugu soo dhacayo sidii dhibca roob oo kale. Ugu dambeyn waxaa habeenada ka mid ah ogaanaya Tusain oo la dhashay Billy, waxa uuna kusoo kacayaa Billy oo daaqada kasii dhacaya si uu u aado shaqadii streetka oo markaa shaqada dhexe laga shaqaynayay. Billy waxa uu ku qancinayaa Tusain in uusan sheekadan la wadaagin hooyadii, taas beddelkeedana uu sii doono wax walba oo kharashaad ah oo u baahdo. Markaa wuxuu Bilal streetka kusii fogaadaba waxa ugu dambeyn maalin maalmaha ka mid ah walaalkii Tusain uu arkayaa Dougie iyo Billy oo baskoolad ku qarinaya store markaa ku yaalay building-ka ay degan yihiin ama deegaanka ku yihiin. Markay meesha ka tagaan, Tusain waxa uu soo bixinayaa boorsadii ay qariyeen Dougie iyo Billy, wuxuuna arkayaa baskoolad, waxa uuna boorsada gelinayaa meel kaloo gooni ah uu markaa kaga qarinayo Billy iyo Dougie maadaama uu u arko khatar inay tahay midaan, maadaama Billy uusan ku ogeyn in uu baskoolad qaato ama shaqadiisa tahay. Marka horena uu sheegay in shaqadiisa tahay kaliya iibinta barreroles yaryar oo darooga ay ku jirto, laakiin uusan ku ogeyn in sheekadu gaarto in uu hub qaato. Ugu dambeyn sheekadii waxaa ku baraarugaysa Leila oo ah hooyada dhashay Billy, waxa ayna isku dayaysaa qaab walba ay kaga fogeyn karto Billy shaqadan khatarta ah ee streetka maadaama musalsalka aad u dheer yahay. Ugu dambeyn Billy waxaa dilaya saaxiibkii Dougie maadaama baskooladii uu lahaa Tony ay lumiyeen labadooda. Saas ay tahayna Dougie waxa uu fahmay Billy in uu kaga dhuumanayo khatarta Tony maadaama markii hore ay ogaayeen yarkii kaga horeeyay shaqadan in loo dilay baskoolad uu markaa lumiyay ama xaday. Dougie oo ka baqaya midda waxa uu habeen saqdhex tooganayaa saaxiibkii Billy. Filimkan dadka kastiska ay kasoo muuqday doorka Soomaalida waxa ay ahaayeen dad Soomaali sax ah. Sheekooyinkan waa sheekooyinka ugu badan ee ka dhacay wadanka Sweden, dhalinyarada teenager-ka ama underage-kana qabsaday marar badan marxaladahan business-ka streetka ku saabsan.